Assalaamu calaykum Ramadaan Kariim dhammaan walaalaha ku xiran barteena ogaalo burcadda kumbiyuutarada wax ku dhaca ee loo yaqaano hackers waa kuwo awooday inay internetka ka sameeyaan magaca iyo baabi'in warbixino muhiim ah ayagoo isticmaala khibradda ay u leeyihiin inay wax ku dhacaan internetka iyo kumbiyuutarka waxaan muuqaalkan kugula wadaagayaa 5 hackar ee ugu khatarta badan caalamka daawasho wacan Nambarka shanaad Kevin Mitnick waxaa loo yaqaanaa hackerka madow. Mitnick waxa uu bilaabay inuu internetka wax ku jabsado isagoo daayar dabiiqadii 1970-meeyadii. Ninkan markiisii ugu horreysay waxa uu jabsashadiisii ugu horreysay uu ku bilaabay basaska ka shaqeeya magaalada Los Angeles si uu u helo raacitaanka basaska bilaashka. Laakiin markii dambe shaqadiisa ayaa noqotay mid dad badan dunida saaran ka yaabisay kadib markii uu jabsaday shirkadaha waaweyn sida Nokia, Motorola, IBM iyo ugu dambeyn Betongan oo ah waxda difaaca Mareykanka waxa gacantiisa ku baxday malaayiin dollar oo lacag ah waxay FBI-da Mareykanka daba taagneed muddo 3 sano ah ka hor intaan la qaban 1995 waxa lagu xukumay 4 sano xarig ah Mitnick waa mid ka mid ah kuwa ugu khatarta badan ee internetka iyo kumbiyuutarka wax ku dhaca Nambarka 4 Matthew Bevan iyo Richard Price labadan nin u dhashay dalka Ingiriiska waxay caan ku noqdeen wax ku dhicidda internetka sanadii 1994 kadib markii ay weerareen shabakada Betongan waxay ugu dambeyntii awood u yeesheen inay xadaan sawirada dagaalka goobta kaliya intaas kuma ekaane waxay sidoo kale xayireen fariimaha kaga imaanaya wakiilada kala duwan ee la shaqeeya Betongan waxay heleen agab badan oo aad xasaasi ah sidoo kale labadan nin waxay awood u yeesheen inay adeegsadaan nidaamyada ama sistemka Mareykanka si ay u gaaraan Kuuriyada Waqooyi ayagoo ujeedkooda ah inay wax ka ogaadaan nidaamka nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi waxay ku dhawaadeen raggan inay sabab u noqdaan buuqa caalami ah sababtoo ah markii ay weerarayeen Kuuriyada Waqooyi waxay isticmaalayeen sistemka Mareykanka Nambarka 3 waxaan filayaa inaad maqashay rag lagu magacaabo Anonymous ama Anon waxay soo shacbixeen sanadii 2003 waxay si aad ah ugu ololeynayeen cadaaladda bulshada xorriyadda internetka iyo daahfurnaanta waxay jabsadeen wax kasta waxay u dhaceen dawladda Shiinaha si la mid ah CIA-da iyo FBI-da raggani ujeedkoodu ma ahayn lacag inay helaan taasoo ka sii dhigaysay kuwo ka sii khatar badan sidii laga filan karay waxay awood u yeesheen inay website-yada ku daawacaan warbixinada dawladda u gaarka iyo dukumiintiyada dagaalka weliba si bilaasha sidoo kale waxay kashifeen dilal badan oo FBI-da ay geysatay sida dilalkii loo geystay Charlie Hebdo iyo Michael Brown sidoo kale waxay soo bandhigi jireen dilalka qorshaysan ay geysan jireen qolada lagu magacaabo KKK Nambarka 2 waa nin aan magaciisa la aqoon laakiin la magac baxay Astra waxa uu soo shacbaxay bartamihii 2000 waxa uu muddo 5 sano si aan kala joogsi lahayn u xadi jiray hubka tiknoolajiyada iyo software-ada kala duwan Astra waxa uu si dhaqso ah ugu gadi jiray daatadii uu xaday dadka iyo shirkado ku yaal Brazil, South Africa, Bariga Dhexe iyo guud ahaan daafaha dunida lama qiyaasi karo inta lacag uu qofkaani lunsaday laakiin waxa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 250 milyan ilaa 361 milyan oo dollar Astra weli lama yaqaan cid ay yihiin xitaa wadanka Giriiga ayaa marqabtay nin looga shakeeyay inuu yahay Astra laakiin waxa uu noqday 58 jir macallin ah dhigana maadada chemistry-ga waana la sii daayay Nambarka 1 ee ugu dambeeya Gary Maganin waxa loo yaqaanaa Solo Gary Maganin waxa uu awooday inuu dhaw xogta militariga Mareykanka iyo adeegyaasha NASA sanadii 2001 oo kaliya Maganin waxa uu tirtiray xog ku fadhida 700,000 oo dollar waxa uu tirtiray xog badan oo isugu jira dukumiintiyo software iyo files muhiim ah Maganin ficiladiisa lacag kuma dhiirigelin jirin laakiin waxa uu ugu tagi jiray halkii wax ku jabsado fariin naxdin leh waxa uu ugu qori jiray security-giina ma ahan mid adag aniguna waxaan ahay Master Solo waxaan sii wadi doonaa jabsashada aan ku wada xogihiina Maganin waxa uu sheegay inuu raadinayo kaliya xogag muhiim ah oo ku badbaadin karo nafaf badan taasoo uu sheegay inuu ugu dambeyntii u helay